gudoomiyaha degmada warta nabadana waxay sheegtay in si xilqaana ay ku dhisayaan laamiga isku xira isgoyska Faransa ilaa Cali Kamiin. gudoomiyaha degmada warta nabadda ee maamulka gobolka Banaadir Saynab Xabsey ayaa sheegtay in markaasi laamiyada ku yaala degmada warta nabadda ay yihiin kuwa dhisan isla markaana canshuurta laga qaaday dadka degmada ku nool ay ku dhiseen taasna ay leeyihiin mahadcelinteeda dadka degmada. dhanka kale waxay sheegtay gudoomiyaha degmada warta nabadda Saynab Xabsey in markaasi si isxilqaana ay ku dhisayaan haddana laamiga isgoyska Faransa iyo ilaa Cali Kamiin waxayna markaasi ku boorisay dadka deegaanka ay markaasi qayb ka noqdaan dadaalada lagu dhisayo horumarka degmada warta nabadda maadaama aan rabno wadankeena deegaankeena si gaar ah inaan wax badan sidii horeyna looga bartaba afshantii sano u dambeysay hadba meel aan isxilqaana ku dhisnay oo waxyaalo badan aad aragteen haday noqon lahayn jilcadayaal interlogi ah laamiyo goobaha danta oo maanta degmadan aad aragtaan quruxdeeda ay ka mid tahay waxaa lagu dhisay intaba canshuurtiina waxaa lagu dhisay si isxilqaana iyo sidaa kuleyna inta kaloo deeqa nooga imaanayay heeda caalamiga iyo maamulka gobolka Banaadir intaba taas bedelkeeda hadda waxaa inoo socda inaan dhisano laamiga isgoyska Faransa ilaa Cali Kamiin si isxilqaana ku dhisayna si dad badan oo idinka kamid ah ee hore ula socdeen inta kalena waxaan rajaynayaa insha Allah dhagax dhiga inay arki doonaan iyo hawshiisa waxa aanan u joojinay canshuuraadkii degmada laga qaadayo si dadkii ay u arkaan in wadankooda wax lagu soo celinayo waxbarashada ilaa 3 iskuul oo tiin inuu free u ka yahay degmada wax ku bartaan 3 MCA caafimaadka aragtaan aad heleysaan iyo 3 isbitaal oo waaweyn oo magaalada Muqdisho dhan looga soo doonta adeegyo intaas waxay ku shaqeynayaan waa maamulka wada shaqeynta kala dhaxaysa gobolka Banaadir iyo shacabkiisa waa canshuurtiina lagu celinaa waxaan rajaynayaa dadka warxamatishiirka ah ee aanan jeclayn in halkan hadda aan ka carqaabo ama aanan jeclayn in u jawaabo intii wanaagsan aan ogahay khayriga ah oo boqolkiiba 80 maanta hawsheeda inoo dhamaatay inaan wadankeena wax badan ka shaqeyno sadaqa jaariyada aan ka shaqeyno qof walbana inta uusan dibadeen u ka tagin wax lagu xasuusan karo waa inuu uga tagaa marka qof kasta kii waqtigiisa haayo kii maalkiisa haayo kii maskaxdiisa haayo intaba subaxii sida u soo galno halkan 8 waxa ka baxnaa saacadan oo kale marka intaas waxa u fadhinana waa maslaxad guud oo ogtiin wadanka iyo duruufaadka lagu shaqeynaa sidaas daraadeed waxaan rabnaa insha Allah inaan si wada jir shacabka iyo sharafta leh oo maanta bahawinta waxbarashada ay nala fadhiyaan inaan ka wada qayb qaadano sida hore uga qayb qaadanaysayna si lagu jibaartaan la'aantii waxba lama qaban karo dowladnimada shacabka dowlad lagu yahay deegaanka dowlad lagu yahay idinkana wax idinku ahay waxa rabaa insha Allah inaad garab gashaan maamulka Zaynab waa qof imaanaysa oo imaaday waqti kooban tagay gudoomiyaha golaha shacabkana waxa uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeediyay shirkii baarlamaanada Afrika gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa ka qayb galay shirweynihii 11aad ee gudoomiyaasha baarlamaanada heer qaran iyo heer markaasi gobol Afrikaba oo markaasi ka furmay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika gudoomiyaha oo khudbad ka jeediyay shirweynaha ayaa ka hadlay saameynta isbedelka cimilada ee geeska Afrika iyo sidii loo soo afjari lahaa cunayarida ay wajahayso qaaradda Afrika iyadoona loo marayo dejinta shuruucda adkeynaysa wax soo saarka iyo saameynta cudurka COVID-19 gudoomiyaha golaha shacabka oo ahmiyad gaar ah markaasi siinaya iskaashiga ballaaran ee markaasi laga sameynayo sidii lagu soo hortagi lahaa abaaraha soo noqday waxa uu u rajeeyay in shirka wax la taaban karo ay ka soo baxaan sidoo kale tan waxa uu markaasi u mahadceliyay cid kasta oo markaasi wax ka qayb qaadatayba ugu dambeyn gudoomiyaha Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa adkeeyay in baarlamaanada Afrika ay fuliyaan wixii ay markaasi ballan qaadeen shacabkooda ummadda qaaradana lagu wacyigeliyo kordhinta wax soo saarka iyo beeraha dalaga dalkooda waa hagaag daawadayaal qodobada dibadda ugu waaweyn hadaynu soo qaadanana Mareykanka oo muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan meelo kamid ah dalka Kenya safaradda Mareykanka ee dalka Kenya ayaa soo saartay digniin amni oo u dirayso muwaadiniinteeda inay u safraan magaalooyin kamid ah dalka Kenya digniintan oo imanaysa xilli ay maxkamadda sare ee dalka Kenya ay wali dhageysanayso dacwad doorashada
safaaradda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay ka fogaadaan goobaha ay dadku isugu yimaadaan iyo goob kasta oo amnigeeda ay markaasi sugneen inta ay joogaan magaalada Kisama. Kisama waa magaalada uu ka soo jeedo mid ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee dalka Kenya, Raila Odinga, oo maxkamadda markaasi ka codsadayba inay laasho guusha William Ruto oo la shaaciyay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Kenya. waa hagaag daawadayaal guud ahaan warka intaas ayaan ku soo afmeerayaa. warka waxaa halkan idin kala socodsiinaya anigoo Cabdiqadar Maxamed Macalin. intaan ku kulmi doono warkan warka xiga. nabadgelyo.